maamul calinkaas waan salaama dhammaantiin. I hope inaa maqlaysaan codkaygana uu si kala yar idin soo gaarayo. Haddii aan isla fiirino isbuucan week forecast iyo wixii suurtagalka ah, waxaa ogeedeen last 4 monthska inaa dhiig soo aan ka sugeynay wax seel ah. Sidoo kale euro iyo lacagaha kale aan ka sugeynay inay qaab buy aan ka sugeynay. Waxaa moodaa hadda inay gaba marayaan ama taagkii ay almost gaareen. Sidoo kale waxa haray inay yihiin labada isbuuc uu soo socdo ama almost bishaan inay xoogaa sii dolow garayso, then insha Allah wax reaction insha Allah inaan ka aragno. Okay. Haddii aan dhigta isla fiirino high time framekeeda. Okay. DXY yar analyska ama almost wixii December laga soo bilaabay wax sugeynay 19 December. Haddii xasuustaan wax sugeynay wixii ka dambeeya lacagtaan inay all the way ay drop soo aado, wayna soo aaday sida aad ka aragtaan. All the way log lagu talagalay aan ka sugeynayna way qaaday. Okay. From there halkaas waxaan ka sugeynaa marka insha Allah lacagta inay reaction ka samayso. Reaction markaan dhahayo waxaa possible lacagta wax correct noocan camal kale hadda in ka bacdi inay gasho oo dib ugu laabato tam meelahan insha Allah in dib ugu laabato even ama xaga ka sala marto then xaga ka sala mari karto kale. Okay. Marka optionaas waa u furan yihiin. Optionaas marka almost takes time sida hadoo kale oo hadda in barsigan almost 4 bilood kusoo socotay. Waxa laga yaabaa corrective kaana almost inay ku jirto kala daa fiirino waa laga bilaabo waa October ilaa iyo waa October 2023 ilaa iyo October ta kale ku dhawaadkeeda almost 1 year ayay halkaas ku jirta. Sida inta ka aragta halkan 4 bilood socoto. Marka waxaad dareemaysaa in haddii lacagtan dhahdo corrective galaya ama big corrective galaya insha Allah inay qaadan doonto waqti aad u badan lacagtan inay corrective ku jirto, laakiin ma filayo lacagtan inay big corrective gasho because sababtoo ah lacagtan awooday leedahay sababtoo ah ama awooday yeelan doontaa ama daciif saa'id ay noqon doontaa. Wax ka dhexeeya labaas ma jiraan. Haddii daciif saa'id noqotana way sii darow garay doontaa all the way meelahan. Okay. Haddii awood ay yeelanaysa DXY si xawli ay ku socon doontaa oo qaab noocan oo kale ay ku socon doontaa. Okay. Marka waxaan ka rajeynaynaa qaab noocaas ka rajeynaynaa. Waa sidee all the way taariikhda way gaartay possible inay 98 ay dib u taabato then markaas ay buy soo aado. Okay. Marka isbuucan maxaa ka rajeynaynaa isbuucan DXY waxna u muuqda uma drop inay possible tahay ay ka sara marto oo meesha ay gaartay 99 sidoo kale 98 loo socdo waa possible laakiin anytime DXY da buy aadada already u diyaarsan buy aad. Okay. Haddii marka aan tagno short termka ama 1 hour kada isla fiirino. Okay. All the way hadda way soo socotaa possible ka all the way in sidii loo ku qaado oo markay loo aan ka hoos marto up to 98 ay tagto ama in aad correct meelaha ka gasho oo mo push ay keento gaabkan soo buuxiso then mo drop ay keento. Okay. Marka DXY all the way ayada isbuucan waxaa ka rajaa furid yar oo seel ah laakiin ha moogaan anytime lacagtan inay buy diyaar u tahay. Okay. Okay. USD GBY waa yen possible oo dad in barta kusoo dhaqaaqday in meelahan correct ka gasho oo mo possible in agga imaato ama mo push waa very possible. Okay. USD CHF ayadana waa ready anytime bay lacagtan ay diyaar u tahay inay all the way buy soo aado cid ka celinaysa ma laha. So laakiin isbuucan waa possible maadaama dhigso ay buy u socoto si aad u socota ka wada ayadana possible oo moolow inay keeni karto. Marka taxadarkina muujiya insha Allah. Okay. Suuqa suga ama all the way in barta fiican hadin siiyo ama all the way in barta kale xoogan hadin siiyo markaas kale wagaa waqti la siiya laguma degdego. Okay. Euro USD card ayada waxaa awood soo yeelatay hadda possible correction noocan ay samayso oo more possible haddii somehow some wada meelaha ay tagto kale ayada can be trade of the week cancel ka dhigto then more sell are very possible. Okay. Euro USD all the way ku jirnaa all the way heshiis insha Allah ayadana all the way inay high ka sara marto marka high ka garayso 1.15 haddii dib u taabato markaas insha Allah waxaan rajeysaa in diyaar noqoto inay soo dhicitaankaas all the way big correct oo noqon karaa DXY ama all the way mid low qaab noqon doona. Okay. GBHD all the way in barta kusoo dhaqaaqday possible wax ka rajeynaya insha Allah wax correct qaab noocan inay samayso oo more push very possible dama more high oo high ka sara mara qaab noocan hadday samayso waa very good trade. Okay. NZD ayadana waxaan ka rajeynaynaa very possible in caagan dib u laabato oo more push ayadana waa very possible. Okay.
فالعيا ugu macquulta hadda waa doolarka isbuucan. door xoogaa chance fiican ka muuqdo oo yar yar oo short term ah yaa harjin insha Allah ay ka faa'iidaystaan. even USD hadday korta fiican idin siiso ilaa xaga insha Allah tasti gareeyo. Okay. goldi asaga goldi waa iska socda anytime aad goldi correct u baxsho kana taxadiray anytime goldi correct fiican idin siiyo insha Allah take bikes waa okay. euro AUD euro AUD ayada possible omo low inay keento waa very possible haddii aagan ay dib u laabato dib u timaadana baagida insha Allah waxay noqon doonaa mid aad fiican noqon doontaa oo kale taariikhda isla taqaanaan hadda weekly taqaanaan meel fiican insha Allah u socota hadii qaab noocaana samayso baagida waa very good. Okay. ama insha Allah ay noo sii qurxiso sababtoo halkan xoogaa hadda imbarsi u eg tahay hadday noo sii qurxiso qaab noocan ay noo samayso then kasii qurxinaan doonta insha Allah. Okay. euro AUD euro AUD sida ayada aragtaan wadawada corrective ku jirtaa waxaa possible lacagta in umo push ay keento umo drop very possible then all to be buy at again. Okay. GBAUD ayada wadawada corrective ku jirtaa very possible lacagta in umo push haday keento agan dib u tagto umo low then umo push qaab noocaas aan ka rajeyna. Okay. laakiin hadii qaab noocaana sameyso ayada insha Allah tariiq waxaa noqoto. Okay. JPNZD ayana luusi momentumka luminaysa hadda saa ka dareemaysid waa qaabka USD ayada all the way waxaa possible ah in had kor usoo dhaqaaqaas oo noqon karaa it can be corrective oo noqon karaa or sidoo kalena wax noqon doonaa import oo noqon karaa. Okay. JPY JPY ayadana very possible inuu umu push ay keento then umu high inay keento ayadana waa very possible insha Allah. Okay. JPCAD JPCAD insha Allah ayadana wax ka rajeyna qaab noocan in halkan imaato aagan imaato then all the way inay high ka sare marto marka insha Allah high inay testi garayso waa very possible. Okay. JBCHF ayada all the way meel dheer u socotaa wita kamaysa gaarin haddii aan fiirno weekly siga aragtaan JBCHF samu meelahan u socota ayadana waxaa ka rajeyna insha Allah intii socoto inay qaab oo tartiiba inay luusi momentumka sidaan kale inay ku socoto qaab oo correct camal insha Allah inay ku socoto then marka gaarto bas arki doona. Okay. Eurocad Eurocad ayadana all the way correct ku jirtaa very possible more low then one more high. Okay. marka tan waxay u cadaynaysaa inay euro USD weli ay one more high u baahan tahay dhig kasoo one more low u baahan tahay. Okay. euro GBY ayada correct ka soo baxday dadka correct ka soo baxday waxay heshay insha Allah ayadana inay sii socoto oo sii ilaa high ka sare marayso. marka maxay ku dareemaysaa euro GBY iyo GBY iyo USD GBY inay isbuucan xoogaa buy ku socon karaan. Okay. CAD CHF ayay somehow corrective ku jirtaa insha Allah ayada xogaa ma qurxoona laakiin waa moo bush waa moo low waxaan ka sugan insha Allah. Okay. marka dhammaan wixii lacagaha ku saabsan insha Allah xaggaasaan kusoo gabagabaynaynaa lacagaha ugu macquulsan isbuucan waa doolarka oo kale waxyaa fursad yar short term oo kale 2% iyo wax laga heli karaa laakiin ka taxadar insha Allah doolar wuxuu diyaar u yahay inuu buy soo aado. Okay. okay marka wixii su'aalaha qabtaan insha Allah qayb chatka wasoo fidin doona. wiiga dig waxaan dhahaa kale doolarka euro USD oo kale baageeda GBP kale hadday qaabka hadda idin sheega samayso NZD USD iyo AUD USD na fursad yar oo baya laba fursad yar oo baya ku xigaan ku jiraan that's it. Okay. okay wax kaloo su'aala guys inay si jirin marka insha Allah videogeena kasoo aad u gaaban yahay halka insha Allah intaas ugu talagalnay inaa kusoo gabagabayno sababtoo ah doolar ama lacag hadda usbuucan wax laga fiiriyo ama ay aad u qurxan ma aragno laakiin insha Allah is arki doonaa next week iyo waxay socon. Okay. waxaan kaga tegayaa bye bye.